sidaad warkaba ku maqlayseen waxaa maanta Jigjiga lagu aasay abwaan Maxamuud Cabdullaahi Ciise Sengub oo bilowgii toddobaadkan ku geeriyooday magaalada Addis Ababa. Abwaanka ayaa ahaa ama ku jira da'diisii 76 waxa uu ka tagay 23 caruur iyo 2 xaas. Qaar kamid ah fanaaniinta hobolada waa bari ayaa ka hadlay taariikhda faneed ee abwaanka. Wariyaha VOA Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray. qaar kamid ah fanaaniinta hobolada waa bari ayaa ka warbixiyay taariikhda iyo kaalintii uu fanka ku lahaa abwaan Maxamuud Cabdullaahi Ciise Sengub oo maanta lagu aasay magaalada Jigjiga ee xarunta dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. abwaan Saciid Maxamed Xarawo oo kamid ah xubnihii ay barisamaadkii isla soo shaqeeyeen marxuum Sengub ayaa ka warbixiyay aqoontii uu lahaa iyo xilligii uu fanka ku soo biiray. horta marka hore inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Maxamuud Cabdullaahi Sengub Allah u naxariisto dalka Soomaaliya iyo dadka Soomaaliya fanaanada Soomaaliya iyo intii asxaabtiisa oo dhan Allah ka sameeyay. Maxamuud lixdameeyadii annagoo raadi Muqdisho ayuu raadi Muqdisho yimid halkaas buu shaqo laga siiyay. shaqadii markii la siiyay muddo markii la joogay wuxuu galay dad shaqaale ah oo loo bedelay ciidamada qalabka sida. halkaas uu tagay asaga iyo Xaaji Cali iyo Cabdi iyo dad badan bay ahaayeen. meeshaas uu tagay qaar waa diideen oo Xaaji Cali waa diideen asagu waa tagay. ciidankii asagoo ah oo xalana jooga waxa la aasay kooxda xoogga dalka. kooxda xoogga dalku haddana ka soo mid noqday kacaankii barkuu dhashay ayaga xoogga dalka ah iyo annaga shaadi Muqdisho iyo kuwii Hargeysa oo la isku daray baa tiyaatarka loo soo bedelay kulligood. tiyaatarkana la keenay kacaankii waa bari u baxshay. markaas ka bacdi Maxamuud wuxuu ahaa xubin firfircoon oo abwaana oo heesa oo hadduu doono gabya oo alifa riwaayado badan buu dhisay. hadda ma aan koobi karo magacyadooda laakiin maadays iyo isku maqada iyo nin wuxuu ahaa yani maanta fanka Soomaaliya adiga xamuun weyn baa ka go'day. sidoo kale Maxamed Xasan Barrow oo ka tirsan hobolada waa bari kana mid ahaa jilayaasha riwaayadii waa maadays adduunyada dadkuna way matalayaan ee uu alifay abwaan Sengub ayaa ka warbixiyay waxyaabaha uu ku xasuusto marxuumka. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. abwaan Sengub waa fanaaniinta dalka ugu waaweynaa iyo kamid ahaa waliba abwaaniinta dalka ugu waaweynaa. anigu waa bari 80kii Hargeysa soo joogna madax weey ahaa riwaayadiisa ismaqada iyo waa maadays adduunyada dadkan way matalayaan ayaan ka xubin wax ka dhigtay. marka run ahaantii waxa waaye Ilaahay ha naxariisto abwaanka bad buu ahaa xagga suugaanta wax badan ku soo kordhiyay dhalinyaro badan soo saaray xagga fanka. lama soo koobi karo taariikhdiisa hadii laga hadlo Sengub. wuxuu ahaana waxa waaye kaydka ay ku aasan yihiin ay ku duuban yihiin. abwaan Maxamuud Cabdullaahi Ciise Sengub ayaa fanka ku soo biiray 1961 waxaana uu kaalin firfircoon ka soo qaatay howlaha wacyigelinta bulshada isagoo soo saaray hobolo badan oo maanta udub dhaxaad u ah fanka Soomaalida sida uu ku waramayo Cabdirasaaq Axmed Geedi Aaqiro oo horay uga tirsanaa kooxdii iftiin ee wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta iminkana xubin ka ah hobolada waa bari. ilaahay naxariistiisa ka waraabiyo marka ugu horeysa eheladiisii wadkiisii qoysaskiisii ummadda Soomaaliyeed samiriye iman ilaahay ka siiyo. abwaan Sengub waxa uu ahaa halyeeyadii fanka casriga ah horumariyay doorka firfircoon ka soo qaatay buu ahaa 61kii buu ku soo biiray fanka oo uu kaga soo biiray Hargeysa muxuu ahaayay kadibna uu soo wareegay Muqdisho. wuxuu ahaa ilaa inta uu ku jiray maalinta uu ku soo biiray ilaa maanta halyeeyada suugaanta ama riwaayad qorayaasha ugu firfircoon ayuu ahaa ee riwaayadaha casriga ama masraxa casriga doorka muhiimka ah ka soo qaatay ayuu ahaa. nin aad iyo aad wacyigelinta ummadda in laga wacyigeliyo wax alla wixii dhib ku ah ayuu ahaa oo aad ugu horeeya nin caadifiya buu ahaa oo ummadda jecel oo wadaniya. gabdhaha fanaaniinta ee uu soo leeliyay abwaan Sengub ayaa waxa kamid ah Xaali Cismaan Faarax oo 80kii ku soo biirtay
gobolada Waaberi. Sangub Allah u naxariisto insha Allah kitaabkiisa gacanta midigta Allah uga dhiibo annaga waxa way Sangub ani ahaan yaani duco iyo maxay ahayd inaan quraanka u akhriyo mooyaan ma dhameyn karo wixii uu ku sifaysnaa ama uu ku samaysnaa qaalib aha aniga sideetamaadkii baan soo galay gabdhihii uu gacanta ku qabtay ayaan ka mid ahaa gabdhihiisa noqday oo maxay ahayd qaaliga aabaha qaaliga uu noqday haday barbaarin tahay haday maxay ahayd ay tahay wuxuu si walba nooc walba waxa way Sangub ma dhameystir karo ilaa hadda saaca ugu dambeysay ilaa 8 riwaayadiisa waxa aan wax ka dhigay way jirtaa filimkii hadda ugu dambeeyay Muqdisho waan ku jiray gabdhii ka mid ka ahaa haddana personal anigu xaaskiisa Khadiijo iyo aabe Sangub aniga aabe iyo hooyo gaar ahaan ee ahaay ugu dambeyntii Xasan Abuukar Cali Xasan Baydhabo oo kamid ahaa wariyaashii raadiyo Muqdisho ee ka howlgali jiray golaha murtida iyo madadaalada ayaa si kooban uga warbixiyay aqoontii uu lahaa Abwaan Sangub iyo wixii uu ka xasuusto riwaayadihii uu sameeyay Maxamuud Cabdilaahi Ciise Sangub Allah u naxariistay waxa aan bartay 97 xilligaas oo aan tiyaatarka tagay runtii Maxamuud Cabdilaahi Ciise Sangub waxa uu ahaa ciyaaraha daahir dhaqanka ayuu ku soo galay markii ugu horeysay sida igu maqaalo ah kadibna waxa uu noqday mu'allif qayb fara badan oo fankana waa uu ka qayb qaatay ruwaayadiisii dabcan waxaan ka xasuustaa ruwaayada aad loo jeclaa waxa kamid ah qabrigii jacaylka xuskii jacaylka xuud balaqay jacaylka xuriyo oo 87kii ay ahayd iyo ruwaayadii 8meedii waa maadada adduunyada dadkuna ay masalayaan oo Maxamed Xasan Barow oo nala fadhiyo wax ka masalayay runtii Sangub waxa uu ahaa nin fanaan weyn oo aan ummadda Soomaaliyeed dhan ka baxay Abwaan Maxamuud Cabdulaahi Ciise Sangub oo maanta lagu aasay magaalada Jigjiga ayaa 1943kii ku dhashay magaalada Dhagax Buur ee gobolka Jarar dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaana uu ifka uga tagay 23 caruur iyo 2 xaas Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho Allah u naxariistay Maxamuud Cabdulaahi Ciise Sangub waxa uu ku noolaan jiray dalkan Mareykanka sanadkii 2007 waxa lagu eedeeyay inuu xadgudub dhinaca galmada ah u geystay gabar 10 sano jir ah dhacdadaasi oo la sheegay inay dhacday sanadkii 1995 inkastoo aysan maxkamadu ku cadeynin eedaha loo soo jeediyay Sangub warbaahinta Mareykanku waxay qortay in isla sanadkaasi uu Sangub ka baxsaday dalkan Mareykanka waxaana lagu daray 10 qof ee sida weyn ciidamada sirdoonka federaalka Mareykanku u raadinayso ee degmada Hennepin County ee magaalada Minneapolis Allah u naxariistay Sangub waa uu diiday oo ma qiranin eedeymahaasi